gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayre Dirir iyo waliba taliyaha qaybta booliska gobolka Sool ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta maamulka gobolka Sool ugu horeeyna gudoomiyaha gobolka Sool ayaa halkaas ka hadlay isagoo baaq u diray cid kasta oo ka soo horjeeda qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan isugu yeeray saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa dawligaaba in lagu warramo warar ku turkuteena oo propaganda oo la dhaxmarayo social media iyo baraha bulshada ku kulanto wararkaas oo aan waxba ka jirin aan u cadeyno dadka gobolka iyo hadii Ilaahay ku reeyay dadka kale ee daawan doona TV-gan aan duubano marka ugu horeysa waxaan leenahay gobolkan aan ku suganahay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa nabadgelyo labada casho ugu dambeysay wax dhibaato oo ka dhacay jiidana labada casho ugu dambeysay haba ilaatay ma jirto wayna xasiloon tahay ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku sugan yihiin fariismahoodii deegaanka Tukaraqeed meel ka soo xagga hore ee bariga ka xigta 10 kilomitir magaalada Laascaanood markaa soo gudaheeda waxa la isla dhaxmariyay 24 saacadood u dambeeyay ama 48 saacadoodba war ku turkuteena oo beena oo propaganda ah oo ay fidinayaan dad wax magarata ah oo ay fidinayaan dad caadaystay ama ay dhaqan noqotay inay dhiig dadka cabaan dadkaas oo baraha bulshada dhexdooda ku fidinaya war aan jirin oo ku turkuteena oo oranaya Laascaanood waxa ku soo wajahan wafti balaaran oo qaramada midoobay iyo AU-da oo shacabka reer Laascaanood raba inay arkaan waxa leenahay wax alaal wax ka jira ma jiraan halkan anaga joogna oo xukuumadda iyo madaxweynaha wakiil u ah dalkani waa Jamhuuriyadda Soomaaliland dhul ahaan iyo dad ahaanba wafti imanaysa haba yaraatee oo halkan imanaysa ma jirto waxaan leenahay dadka masaakiinta ee maatada ah caruurta iyo dumarka waxa loo akhriyay waxaan leenahay warkaasi dhagihiinu uu gelin waa been sal iyo raatoon aan lahayn dadka dibadaha caruurtoodii geystay ee ubadkoodii waxbarashada oo aan la haysta ee caafimaadka helaya ee lacagta caydha ah ee laga qaado dadka dawladaha kale ku nool ee Facebook-da propaganda soo gelinaya ee ummadda jaawarinaya waxa leeyahay isla yaabin rabaan baa lagu jiraa bishii qeyrkeenu ku jirnaa Ilaahay u toobad celiyo oo ka daayay dadka beenta iyo xasalada dadka kale ee gobolka ku nool iyaguna warka qaadin waxa leenahay dhig haw dhigna waxaasi waa been waxa la wax ka jira ma jiraan taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool ayaa isaguna ka hadlay dhanka nabadgelyada guud ee magaalada Laascaanood isagoo sheegay in xiran yihiin qaar ka mid ah dhalinyarta ku dhaqan magaalada Laascaanood oo qaarkooda lagu shaqeysanayo waxay amni siyaasad kama hadlo ammaanka magaalada Laascaanood waa sugan yahay waa jiraan sidii hadalladaba ka maqlayseen ama magaalada banala joogtaan caruuro yaryar oo la marin habaabiyo oo waliba da'yar u badan oo dhagax tuur iyo saacad ka hor ka bilaabay magaalada booliisku waana kala eriyay talaabuna ka qaaday haddana nabadgelyo ku sugantahay wax dhibaato ka jiraan ma jiraan waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadweynaha degan gobolka Sool marka hore waxaan leeyahay nabadgelyada ilaashada ciidaha fikirka khaldan dhiibaysa caruuraha adeegsanaysa waxaan leeyahay waxay idinka wacan in ay idinku waxa qabtaan ka hadashaan oo ficilka hadashaan ama cad ka hadashaan oo caruurta iyo maatada dhibaatada ka daaya arintaasi iyo dumarka jilicsan caruuraha dadka nugul dhibaatada ka daaya waa Mustafa Dheereeye Salebaan Hayba Laambad Barkad Cumar Axmed warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.